cabdishakuur day maxamed oo ka mid ah wariyaasha home cable TV ayaa waraysi gaara waxa uu la yeeshay boqor Axmed Iimaan Warsame oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaalida oo isaga labiskiisu uu ka duwan yahay madax dhaqameedka kale oo ka sheekeynaya waxa uu ka kooban yahay labiskiisu iyo waxa ku keenay waa kan cabdishakuur. boqor Axmed Iimaan Warsame waa boqorka bulshada Gabooyaha oo ku dhaqan guud ahaanba geeska Afrika iyo dhulka Soomaalidu ay degto oo dhan. waa boqor uu ka duwan yahay hugiisa iyo sidoo kale nidaamka dhar xirashadiisa iyo qalabkiisuba madax dhaqameedka kale ee Soomaalida. marka la eego dhammaan agabka uu isticmaalo ka tarjumaya taariikhda iyo hidaha Soomaalida. boqor Axmed Iimaan Warsame ayaa waxa aan weydiin doonaa arrimaha hugiisa ku saabsan iyo sida uu isticmaalo iyo arrimo kale oo ku saabsan dhinaca dhaqanka. boqor Axmed Iimaan dadku markay inta badan ay ku arkaan sawir ka duwan madax dhaqameedka u muuqda haddii noqoto koofiyadaada dharkaaga leebka iyo qaansada iyo baarkan kale sida dhamaantood dadka waxaad u sharaxdaa sida aad u diyaariso qalabkaaga. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa home cable waxa weeyaan qofka Soomaali baynu nahay dhaqan baynu lahayn caalamka ama adduun weynuhuna dhaqankooda way ku faanaan qofku bulshada shacabka uu u yahay dhaqanka iyo isagoo in kala duwanaadaan oo markuu halka mar la gartaa inuu ninkan yahay bulshadan madaxdiisii amaba suldaankiisii boqorkiisii caaqilkiisii marka waxa weeyaan anigu waxaan goostay maadaama madax dhaqameedka ka mid ahay Soomaalida in ay madax dhaqameedka kalena iga daydaan oo aynu iska dayno nin madax dhaqameed oo suldaano niigteen iyo koor qaadanaya oo labiskii ma ogtahay una u dhalan qaadanaya inay taasi nusqaan inagu tahay haddaynu nahay madax dhaqameedka Soomaaliyeed. marka madax dhaqameed ahaan anigu sidaan dharka u qaataa labadan go waxa qaadan jiray odayaasheenii hore amaba bari ha u dhashaan ama xaggan ha u dhashaan waa la yaqaanay. waxa jira kaba jaangariya aan lahayn waxa jira leebkan iyo qaansadan khaasaan annaka beeshan ka soo jeedno ayaa ku waarsan jirnay oo qaadan jirnay. marka waanu kaga duwanahay madax dhaqameedka kale amaba bulshada kale waxaanan oran lahaa soo jeedin lahaa walaalahayga kale ee madax dhaqameedka in aynu inagu iyo bulshada aynu u nahay salaadiinta iyo madax dhaqameedka inaan kala duwanaano ayaan kula talin lahaa oo aad qaadataan huga ma ogtahay dee madax dhaqameedku ay leeyihiin kaga duwantahay bulshada kale. imika koofiyadaada oo kale imisa nooc bay ka koobantahay waan garan karaa imika baalasho kale dee ay haadi ka mid yihiin laakiin bal waxyaabo kale ka koobantahay bal sharax. haad waad garanaysaan waan wada garanaynaa laakiin haadi dee baalabeeled laakiin farsama la doonaya lagu dhaqo waxa sameeya baaladan inta badan sameeya oo ii sameeya farsamo yaqaanada ayada beesha ka soo jeeda dhowr koofiyadood baan leeyahay inta badan iyaga sameeya qaar goraya weeyaan qaar gorgor weeyaan qaar moogta baalkan juglaha la yiraahdo weeyaan adugu baalasha badan ee haada iyo gorayadiyo ayay ku saleysan yihiin iyagaana noocyada loo sameeyay yaqaana. imika waxaan iyaga sameeyay leebkan iyaga sameeya tan mariidka lagu ridaa baalkii bisun baa jira leebka la mari jira afkiisa hore waa arrimihii difaac ma loo karaa difaaca moogtahay barigii hore la adeegsan jiray adduunka caalamkana qofku wuxuu ku faanaa wuxuu sameesto maalgelin hadii la siiyo wax ka wanaagsan baan sameyn lahayn. Axmed Iimaan Warsame haddaan kula kaftamo dadka qaar waxay odhan karaan maadaama boqorku koofiyad leeyahay inuu hal koofiyad samaystaa dee waa nolosha dhowr shimbirood bay ku kacaysaa. marka xagga miyaan la odhan karin da ugaadhi baa dabar jartay oo koofiyadaha waxay ka kooban yihiin inta ugaadhi la laayo. may arrintaas waa arrin iska jirta ma ogtahay haadi baa anagii haadi baa qaatiyaan kala joognaa soo garan midda kale gorayadiina waaba tan dee ma ogtahay nalaga xaaraantimeeye baarlamaanku ka soo saaray qodobo inaan la layn inaan la dilin ma ogtahay gorayadu dhowr koofiyad bay noqon lahayd. marka sharcigaas laftiisa koofiyadaha dhan buu ka soo maaha waan oran karaa markii ma ogtahay koofiyadaha la arkay ayaa malaa baarlamaanku ay ka fadhiisteen in koofiyadaha sidii loo dabar jari lahaa aanan u samaysan lahayn. waxaan doonayaa inaan kulanku weydiiyo waxa jirta arrin aan maqlay ku saabsan in midowga reer Yurub ay ku aqoonsan yihiin boqorka geeska Afrika ma jirtaa? ha waa jirtaa markii aan shirkii Geneva ka qayb galay midowga Yurub iyo ma ogtahay AU-da way aqoonsadeen kaarbaysiiyeen markii dowladda Itoobiya markii galay kaarkayga ku galaa Kenya waan ku galaa
laakiin waxaan ahay boqorka geeska Afrika minority-ga mugu boqor kala jiro haday imka maqlaan weerar igu soo qaadi doonee anu boqorka ajiga meeyay boqorka minority-ga geeska Afrika ee ummadayda ay aqoonsadeen inaan ahay oo xuquuqdooda u doodo leena wardad walaalihiin aan nahay na aqoonsada inta badan imka Soomaaliland waxa ku mashquulsan tahay nalama aqoonsado dambi buu naga galay bay yiraahdaan caalamku shuruuduhu baan buuxinay bay yiraahdaan dawladnimo Soomaaliland anaga waxaan ugu oran jireen war caruurta wax bara war jaamacadaha geeya war wixii oo dhan kuna Soomaaliland waan buuxinay wixii shuruudaad nagu xidhiseen marka waxaan filayaa markay ixtiraafaan in iyaguna ixtiraafkoodu xagga Ilaahay ka iman doono laakiin inta anaka cadaadiska lagu hayo iyagana wuxuun ba ka xidhan dhawaan waxaad ka qayb gashay shirka dhacay magaalada Jigjiga shirkaasi oo uu soo qaban qaabiyay madaxweynaha dawladda deegaanka iyo xukuumaddiisa waad ka qayb gashay bal shirka nooga waran wallahi shirkaas wuxuu ahaa shir xalaal ah wuxuu madaxweynaha kililka Soomaaliyeed ee federaalka dawladda Itoobiya madaxweynayaasha kale madaxweyne ka duwan buu ahaa wixii aan arkay dii waxaan halkan kaga wada warrami kara maaha ballanqaaduu sameeyay ballanqaadkii isagoo kursigaba ka kicin buu qaar fuliyay waxa kale uu sameeyay in uu tikoorkan jabo isku guuriyo 100 inan iyo 100 hablood oo inankiyo gabadhii iskursadana uu ugu ballanqaaday inuu guriyo u dhisay 3 maqsina lacag ay ku noolaadaan ama shaqo noqsiinayo taa lagama heli jirin madaxweynayaasha Soomaaliyeed marka miyay hirgasho ilaa hadda mise waa qorshe un bay ilaa hadda tahay may wax badan way hirgaleen waxaad arkayso nin baa yiri saankan cunayo waxaan gartaa saankiisa anu rajada aad iyo aad baan ugu rajo weynay in arintaas fuliso aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu daawadayaal ahaa boqor Axmed Iimaan Warsame oo iga warramay arrimo badan oo ku saabsan dhinaca dhaqanka iyo taariikhda iyo sidoo kale arrimaha dhanka takoor ku saabsan ee Soomaalida ka dhex jira gaar ahaan bulshadaasi Gabooyaha